gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax oo kula hadlay xarunta gobolka Togdheer warbaahinta ayaa ka warbixiyay laba kiis oo musuqmaasuq lagu eedeeyay dawladda hoose iyo sidoo kale baqaarada kaydka qaranka ee gobolka Togdheer taasi oo labada kiisba uu kaga hadlay shirkiisan jaraa'id waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan kulay igu timaadeen maanta inay weydiisaan hawl dawladda hoose say sheegteen iyo kaydka qaranka oo iyana hawli ka jirto labada arrinba waa ka war haysaan halkan maanta waxaan wada fadhinay codadkii dawladdii hoose kiiskaas uu soo dhamaaday hawshaasi hawl wax ka taagan yihiin ama wax laga dayo maaha waa jiraan baadhis gashay dawladda hoose xaqna way u leeyihin codadku inay baadhaan hay-adaha dawliga ah hawshaa sidaa beijkooda ka arkaysaan sheeko dhammaatay oo ay shaqaalihii maalintii hore la xidhayna ku noqdeen shaqadeedii ayay noqdeen waxaanay ku dhammaatay in wax la soxo wixii hore ee qaladaadka qolna ay qaladka u arkaysay qolna ay saxa u arkaysayna si fiican ayaa la isaga afkartay oo horta dee idinkuba ka warhaysaan oo dee dhow markay tahay wax madaxweyne digreeto ku soo bixiye mooyaane hay-adda keliya dee inoogu xil saarani waa dawladaha hoose buunbuuninta faraha badan leh ee la buunbuuniyey iyo waxyaabaha faraha badan leh laga doonayna runtii may lahayn iyadoo baadhisu way dhici kartaa maalin walba saaka iyadoo xafiiska laga baxaa berrinta haddana dib loo baadhi karaa waxaynu wadnaa toosin markaan usoo noqdo hay-addan ka hortagga aafooyinka baadhis baa socota runtii waa laakiin inta jirtaa waxa weeyaan ninkii mas-uulka ka ahaa ayaa la waayay waa waxyaabahaan rabno inay wada shaqayntu wax ka tarto aanu qofna xadi karin hanti umadi leeday ama raashin ha noqoto ama lacag ha noqoto meel kasta waxa weeyaan hay-adihii madaxa bannaanaa ee la abuuray muddooyinkii ugu dambeeyey ayay ka mid ahayd taa iyada ah xataa markay wax bixinayaan ogeysiin kuma laha gobolka oo ah maamul xumo dhacday oo hore u dhacday in la soxo hadda dadaalkii ugu dambeeyey lagu jiray 2 wiig ka hor baa baadhis lagu sameeyey oo dadkii odhadii ay galeen iyo koox ka tirsan wasaaradda waxba may maqleen markaa laakiin waxa keenay tuunka ilaa imikaana waxaan ku leenahay waa tuhune documentiskii loogu tegay meeshana wuu iswada waafajisay qaarkood sifa xaaraana loo arko inay isku aanay weli saxnayn laakiin waraaqdii meesha loogu tegay baxsadka inanku baxsaday iyo arrin kale oo dhacay oo raashin meesha yaallo dee hay-addu waxay ugu tala gashay kaydka gobollada bariga tijaabo ahaa timir 15,000 oo kiisha ayaa timi in badan oo ka mida waa la bixiyey oo sifii ay ugu talagaleen baa loo bixiyey xisaabtoodiina waa lagu jiraa yaan waxba la buunbuunin $100,000 baa bariis waxbaa ka jira waanay socotaa xisaabtakoodii laakiin sokorina ma jirin daqiiqi kuma jirin saliidi ma jirin raashin fara badan oo caynkaasoo lala yaabana kartuunka timirtaana $7 iyo $8 mooye wax laga siiyo way dhici kartaa wixii maqani way soo bixi doonaan xisaabtii baa lagu jiraa inta baadhistu socoto waa wadayna ina liftigiinu inay ka gaabsataan bay
raashin baa la dhacay oo la waayey oo dee waan arkayay warbaahinta wax badan oo runtii ku jira laakiin wuxuu ilaa hay-adihii ku shaqada lahaa dee ay ka soo dhammaadaan wuxun bay noqonaysaa ceebayn la ceebeynayo magaaladii lagu ceebeynayo iyo waxaa laga yaabaa ninkaasi markuu xisaabtamo iminka tuunkoo dhan waxaana sii geliyay waa maqnaanshiyaha uu maqan yahay maqnaanshiyaha uu maqan yahay waana lagu maqan yahay sidii isaga loo soo qaban lahaa annagoo adeegsanaynaa odayaashiisii waxaana dareenkaba keenay raashin ceerigaabo loo rarayay ayuu 2,000 oo kartuun suuqa ka soo iibiyey dabeedna karaatiintii meesha taaliye karaatiintii baa kala sawir noqday inankuna isagaa isu noqday storeman iyo isu duwaba waa ogeydeenoo dee reer barcaba ka wada warqabaane ninkii ka ahaa isu duwaha joogay wuu dhoofay markuu shaqadaa baneeyey stooremaankii oo ahaa labadii days jeegarayn jiray marka isu duwaha dee qoraalka xagga sare uu ka soo gaadho stoorkuu la imanayey halkaasaa dabeedna labadoodiba ay saxeexi jireen ilaa xamaalin gaara bay lahayd shaqay qabanayeen boliis baa joogay tii iyada ahayd ayaa dee firaaq maamul buu helay inankaas ma caddayn karno tirada ku maqan imanka laakiin marka baadhistu soo dhammaato iyadaan cidna laga qarinaynin ayaa la sheegi doonaa haddii alla yadhi iyadoo aan cidna laga qarinaynin ayaa lasoo bandhigi doonaa cuqubaday leedahayna haddadanba waa ka warhayseen oo dad baa ganacsato ah oo wax dhex mareen baa lasoo xidhxidhay qaar waxay leeyihin waxbaanu suuqa uga soo iibinay sida timirtaas oo kale guddoomiyaha baarlamankaa loo raray oo waa wax laysla wadoogaa waa xisaabtii waa lagu jiraa markay soo dhammaato dee idinkoo heli karaya guddoomiye ku-xigeenka giire 2,000 ee loo raray baa dareenkaba nagu keenay sawirku aanu ahayn timirtii hore qofna wax way ku dhilmi karaan bini aadan baynu macsuumiin maaha dadku warbaahinta iyo ragga isla faska ka ciyaara laakiin maxaa tallaabo laga qaaday baa taala baadhidii way socotaa dee nin walibana cuquubadiisu ka heli doonaa laakiin waxaanaan halkan uga digayaa ragga iyagaan war haynin ee weliba siyaasiyiinta sheeganaya ee eedda dad aan lahayn saaraya iyagana sharciguunbaa u yaala marka idinkana waxaan runtii dhallinyaradiinan warbaahinta gobolka togdheerna kula talinaya waa 24 saacadood waan idin joognaayo horta wax naga weydiiyo dee iyaynaan kala hordhicin hadhowyeedaan odhanin waa xigashe inta war beena burco beenta ma aqoona saraaxaday taqaan burco ruway isu badheeri jirta runtaa la sheegi jiray war waxaasi ninkaa way ku maqayena maxaynu la qabanaa kuwii odhan lahaa ayaa tiin waa inaan dhalinyaro ah oo idinka mida oo aan qolo ku iman oo ku yimi shalayto ahaa shaqaalihii laga qoray shaqo qoran burcuu wax ku bartay burcuu ku koray burcuu ka shaqo galay waanay caddaan doontaa wixii hadday cidi mas-uuliyadda la lahaydna dee way caddaan doontaa waxaynu waa wada garanaysaan laakiin ragga waxaan jirin ka daydayaya iyo tiro aan jirin iyo buunbuuninta faraha badan le la buunbuuninaya burco ma taalo waa hawl lagu jiro waa 2 item baa yaalay weliba item ma badnayn waa itemkaa yaree timirtaa iyo imberiisa labadiibana waxa maqan waa hawshoodii way socotaa waana laydiin caddayn doonaa wixii maqnaada iyo waxa yaala iyo wixii ay dadka hawshaasi gashaa cuqubo yeeshaanba waxay noqon doontaa mid la caddeeyo marka waxaa leeyahay baadhistu intay dhammaanayso iyo inaan dee saaxiibayaal kala hordhicin qolada hargeysa xigasho iyo wax ka sheekeynaysana adeer meesha ma joogtaane dee beentii iska daaya waa rabadaan weliba allihiina ka baqdo buunbuuninta iyo warka beenta iska daaya waxa uu yidhi
إلهي آيات قرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا يديك اللفتجينو هنا يدين ماليه أيدي ورك سجن كيل الهيدين دونتان آيات سورية شغل يقف كستوح شاجة أيها يستطيع إسكيل عليه وحويا وركواد وقتل بالله تبينوا لأن تصيب قوما بجهالة تو مددن با isku rogman kara warka beenta ee la sheego marka waxa leeyahay burco waa fiican tahay waan shaqaynaynaa waan dadaalaynaa abaartaas aan haysay maanta ninkii abaarta nooga soo gurmada ayuun baan u xusuunay waa salaamantii soo ma aragtaan waa degdeg waa ammaano waa fudayd waa hal martaaba oo keliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay hal taabasho oo keliya